asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada warbixin kooban aynu ku eegi doono shakhsiyaad noloshooda wax ka bedelay kuwaasi oo noloshooda intii badneed ku qaatay darbijiif islamarkaasina noqday dad hanti iyo magacle. darbijiif iyo wariyo cod dahabiya leh, milyaneer iyo murashax madaxweyne waa ninka lagu magacaabo Trader William. qisada Trader William oo ah nin waqtigiisa in badan ku qaatay nolosha maandooriyaha iyo hoyla. William waxa uu ku dhashay magaalada New York ee dalka Mareykanka sanadii 1957 markii ugu horeysayna wuxuu caan noqday horaantii 1980 isagoo ka howlgali jiray raadiyo ku yaala Ohio Columbus kaasi oo ka shaqeynayay muddo ka badan 10 sano, balse waxa shaqadii laga cayriyay sanadii 1994 kadib markii uu khamri iyo xashad iska badiyay, wuxuuna durbadiiba noqday mid hoylaana isla markaana dhex dabaasha nolosha dambiyada. waxaanu noqday shakhsi ku nool January 2011. William waxa uu helay warbaahin codkiisa baahisa kadib markii uu warbixin laga diyaariyay dadka darbijiifta oo lagu baahiyay YouTube-ka iyo baraha bulshada, wuxuuna helay dalabyo shaqo oo noloshiisa bedelay kadib markii uu muddo 20 sano ahaa mid qabatimay nolosha daraagiska iyo hoylaanta. wuxuuna William arkay inuu si joogto ah u shaqeyn karayo, wuxuuna iska duubay codad iyo barnaamijyo ka baxa raadiyoyada isla markaasina ay dadku jeclaysteen, waxaana imika loogu yeedhaa hadda waa asaasaha mashruuca Trader William oo hay'ad si mutadawacnimo u caawisa dadka aan hoyga lahayn. wuxuu nolol u abuuray boqolaal darbijiif ah oo uu ku caawiyay hoy iyo cunto. balse 2015 William waxa uu ka yaabsaday dunida kadib markii uu ku dhawaaqay inuu damacsan yahay inuu tartamo murashax madaxweyne oo dalka Mareykanka, balse waxa uu tartanka iskaga hadhay horaantii bishii January 2016. William waxa uu hadda mar labaad ka shaqeynaya raadiyo kadib muddo 22 sano kadib. intaa waxaanu ku soo gabagabaynaa warbixin kooban aynu ku eegaynay dadka noloshooda wax ka bedela. intaan barnaamijka mid la mid ah dib ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. si aad ula socoto muuqaallo iyo warbixino cajiib ah, fadlan subscribe